Assalaamu calaykum. Nin la odhan jiray Ibnu Naxwa ayaa waxa uu doonay maalin maalmaha ka mid ah inuu la taliyo wiilkiisa. Marka ayagu wuxuu ku yidhi, wiilkaygiiyow, haddii aad doonaysid inaad shay ku hadashid, marka koowaad aqligaaga u soo bandhig, mar labaadkana ka fikir, mar saddexaadkana kelmadii aad ka fikirtay iyada oo toosan afkaaga ka soo saar. Wiilkii waa ku waafaqay talada uu soo jeediyey aabihii. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah iyaga oo fadhiya meesha ay fadhiyaana waxaa ka hurnaa dab oo ka shidmayey, ayaa waxaa dhacday in dambiil ka mid ah dabkii ay ku dhacday jeebka wiilka yar aabihii. Wiilka yar aabihii maanu arkayn dambiisha jeebka kaga dhacday, laakiin wiilka yar wuu la socday oo intay dambiishu ku dhacaysay uu arkayay. Kadib wiilkii yaraa waxa uu sameeyey saacad dhan ayuu aamusay oo ka fikirayay waxa uu ku odhan doono aabihii. Kadib wiilkii yaraa ayaa ku yidhi aabihii, aaboy, ma ii ogolaanaysaa, waxaan doonayaa inaan wax ku yidhaahdee. Kadib wiilkii yaraa aabihii wuu u ogolaaday, waxauna ku yidhi, haa, waan kuu ogolahay, idhah. Kadib wiilkii yaraa ayaa ku yidhi, aabbo, waxaan arkayaa shay cas oo jeebkaaga ku dhex jira. Kadib aabihii baa ku yidhi, waa maxay shaygaasi? Wiilkii, waa dambiil kaaga dhacday jeebkaaga. Wiilkii aabihii jeebkiisa ayuu eegay, waaba iyadoo qayb dhan oo jeebkiisa gubatay. Wiilkii yaraa aabihii ayaa ku yidhi, wiilkaygiiyow, maxaa mar hore iigu sheegi weyday oo ii ogeysiin weyday? Wiilkii yaraa waxa uu ku jawaabay, aabboy, waan ka fikiray hadalkayga si aad mar horeba ii amartay, kadibna hadalkaygii baan toosiyey, intaa kadibna waan hadlay. Wiilkii yaraa aabihii ayaa ku celiyey, mar dambe naxwo dib ha ugu hadlin. Inta ayaynu kusoo koobina barnaamijkeena. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.